السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا سلامي ولا لا كحرن تشالن كنا سمع كرات مقال كنا ما أنت وحن كوسو جود بنا سداد وحتران سلهد فكرة ذاك وحكولك وحنا ترى فكرة ذا وين أنت أنا دلام كهر حنا والسبب ونسلو عندنا المقال كنا هم كده قلنا guulaha iyo wax soo saarka cusub ee maanta la gaadhay waa riyadii shalay haddii aad u fiirsato waxyaabaha kugu xeeran sida dhismayaasha dhaadheer maraakiibta diyaaradaha telefishinada internetka iyo idaacadaha waxay ahaayeen riyo ku jirta mid ka mid ah maskaxda kii daahfuray riyadu waa meesha ay ka bilaabmato guul kasta waana cunsurka ugu muhiimsan ee waxqabadka wuxuu yiri Albert Einstein riyadu way ka muhiimsan tahay aqoonta lafteeda riyaduna waxay qaabaysaa caalamka oo dhan waraysi uu la yeeshay telefishinka Maxamed Cali Kalay ayaa la weydiiyay dariiqada uu ku gaadhay guulihiisa joogtada wuxuuna ku jawaabay waxaan bartay muddo ka hor inaan noqdo qof leh karti aad u sareysa taas kaliya tana uguma filnaanayso laakiin waa inaan yeeshaa miskax leh maleysi aad u sareeya iyo riyo cilmi baadhis lagu sameeyay qaar ka mid ah ardayda dhigata kulliyadaha jaamacadaha ayaa waxay u dhacaysay sida tan iyadoo la isticmaalayo qalab casri ah ayaa loo kurgalay waqtigii hurdada ay ku jireen markii ay ardaydu hurdada si fiican u gudagaleen oo ay gaadheen marxaladda ay riyadu timaado ayaa ardaydii la toosiyay kaliya waxa loo ogolaa inay seexdaan ee aanay riyoon markii sidaa lagu waday 4 habeen ayaa waxa ardaydu ku dhacay wareer walbahaar iyo warwar badan markaas tijaabadii laga joojiyay ardaydii haddii haddaba aanu isweydiino maxaa laga faa'iideystay tijaabada waxaan ogaanaynaa inay riyadu ay aad ugu muhiim tahay aadamaha maxaa yeelay waxay naga caawinaysaa deganaansho nafeed iyo raaxo riyaduna waa meesha uu shay walbana ka bilaabmo koox Shiinaysa ayay waxay tijaabeen aragtida Malaysia waxayna fadhiisteen qol aad u qabow dhar dhaxanta ka celiya ma wataan kaliya waxay jirkooda ku duubeen 10 maro oo qoyan waxayna markaa ka sawirteen maskaxdooda inay kuleylka jirkooda isticmaalaan si ay qabowga iskaga difaacaan taasoo keentay inay gaadhaan heer ay maryihii qoyanaa qaleyl isku bedelaan maxaa yeelay sawirashadooda awood aad u sareysa leh waxaa jira fikrado muhiim ah oo dhinta intaanay dhalan ka hor waxaana uu sababa dhimashadooda laba arrimood caqabada koobaad waxay tahay dadka inagu xeeran ee ay ka mid yihiin qaraabadeena saaxiibadeena jaarkeena waayo waxay sabab u noqonayaan in afkaarteena qiimaha leh ay fashilanto maxaa yeelay haddii aad fikir fiican wadatid ayay qaar ka mid ah ku jeesjeesayaan ku dheeldheelayaan hadallo xabada ku xun ee ku oranayaan hadiiba ay isku dayaan dadka fiican in fikradooda ka dhabeeyaan waxay ku oranayaan fikirkaagaas wax qiimo ah ma laha mana soconayo sababo badan oo aan fikirkaaga u soconayna way ku tusayaan waxaana la iska indhatireen in bulshadeena Soomaaliyeed dad caynkaas ah ay ku jiraan Soomaalideena dadka niyad jabiya xidigay soo baxaba niyad jabinaya oo fikrad cusub ku soo kordhiya qalbiga ka galaya oo niyad jabinaya oo ay soo oranay qofkan dhiirigali hore u wad nabi kaleey salaatu wasalaam naxariis nabadgeliyo korkiisa waa ka yiri ama hadal wanaagsan ku hadal ama iska aamo marka waxa wacan markaad aragtid qof fikrad waxaan soo kordhiyay waxa wacan uu inaad dhiirigali sida hore aad u wad balse aad ka ama heli waayo ka waran afkaaga oo qalbiga ka gashid oo niyad jabisid mashaakil maanta hadaad aragtid caalamkaas oo dhan galbeedka waliba waxa dhisay oo horumarka weyn oo horseeday waxa weeye dadkooda fikradii u soo baxda ama qofkii wax tar leh oo dhiirigeliyaan adduun bay ku bixiyaan adduun qarasheed nina dawladdeenu dhiirigelimayso dawlad ba iska badaayo dadkeena ayaana ka ama helinba shacabkii bayna ka ama helin dadkaasuna bulshadeena way ka buuxaan inaad aragteen moojiye anu kulli waan arkay dad badan oo caynkaas ah caqabada labaad ee disha fikradeena wanaagsan waa inaga waayo marka ay fikrad cusub ay nagu soo dhacdo mid dawaan gelino meel kuma qorano hadaba fikradaas waxay noqon doontaa xaqiiqo bedesha noloshaada oo dhan hadaa si waxan uga faa'iideysatid fikradaha kugu soo dhacaya waxa laga yaabaa inay noqoto xaqiiqo noloshaada oo dhan bedesha ma xasuusataa mar aad doonaysid inaad shaqo qabato laakiin naftaada u sheegto aad tiri
shaqada ma karayo ma xasuusataa mar istiri habeenada kamida salaada subax u kac kadibna naftaadu ku tiri iska joog hurdada ka qaalisan salaada ad hurdadii ku sii noqotay hadhoona salaada sida ku dhaaftay haddaba maxaa u diiday naftaada iyo naftaydaba in xaqiijiyaan himiladooda jawaabtu waa laba kelmadood oo kaliya bay la fiiri labadan kow waa inaad doorbidis yeelato inaad wixii qiimaa lahaa wax yaro iska normala ama maala yacni aad ka doorbidid tusaale aan kuu soo qaato habeenaad istiri salaada subax u kac ayaad waxay ka doorbiday inaad seexatid aad iska jiiftid salaadiina halkaa ku dhaafto waa caynkaas wax walba oo qiimaa leh haddaad wax yaro aan waxba ahayn ka doorbidid mashaakil weeya haddaad istiraadi salaada jamaca ku ilaali waxba ka doorbidin sidooda ugu ilaali dadkeena waxa waalaya wixii qiimaa wax yaro maala yacniya ka doorbidaya qodobkeena labaad waad aragtay dadkoo kule fikirkaagu wax qiimaha ma laha waxayna kuu sheegayaan sababo badan oo keenaya inuu fashil yahay fikirkaagu laakiin qofka awoodda leh inuu diida ama aqbalo hadalka dadku waa adiga adigu sidaad jeceshahay u noolow qof bila'aadana daraadii looma noolaado haddaad maanta aad waxaad ku saxan tahay oo aad qabanaysid camal yarna ahaade aad tiraadid dadkiibaa ila yaabay dadkiibaa caynkaa yidhi waan ka cararaya waa mashaakil wayna jiraan dad bila'aadanka u nool balse sidaad jeceshahay u noolow siduu ilaahay subxaana watacaala raalli ka yahay u noolow balse ha u noolaanin bila'aadan daraadi ha u noolaalin bila'aadanku waa kala aragtiya duwan yihiin qof baa si qof wanaagsan ku arka qofna wuxuu ku arkaa qof xun taasuna waa taas labada qodob aan ka soo hadalnay waa labada qodob ee dadka maanta saameynta ku yeesha isku daya inaad labadaa dhan iska dhistaan haddaba kusoo dhowow dariiqadii aad ku horumarin lahayn riyadaada hamigaaga iyo fikradaaga wax ku-oolka haddaba intaanan u gudagelin waxyar akhriso taariikhaha dadka guulaystay oo dareen guusha lafteeda waxaad sawirataa adigoo guushaada gaadhay mid la mid ah iska ilaali dadka warxuma tashiilka ah ee ku niyad jebinaya oo dadkeen ka soo hadalneen iska sii daa khiyaalkaaga hawada sare ha dhaafee khiyaalkaagu waa waxaad aaminsantahay maskaxdaada ka guuxaya markaad istiraadid wax qabo ku diidan oo fikradaha xunxuma kuu soo dhacaya wey sii daa hawada sare ha dhawaafee naftaadana ku kalsoonow awoodaa ilaahay ku siiyey inaad ku kalsoonaataa waa muhiim kalsoonidan lagu sheegaya haddaan tusaale ka bixiyo waa fikirkayga tusaale haddaan ka bixiyo aabbaha waad taqaanaa magaciisa oo saddexaad hebel somaa kalsoonida lagu sheegaya waa waxda adugu aad aaminsan tahay haddaad adugu aaminsan tahay inaad tahay nin karti leh oo wax qabsan kara cid ku jebinaysa ma laha waayo dheh naftaada ku kalsoon tahay haddaba tusaalaha waxaan uga socdaa waa inaad naftaada aad aamintid wax kastoo aad aaminsan tahayna ku kalsoonaatid markaad dadka la wadaagaysid waxaanu shaki ku jirin inaad guulaysan insha allah haddaad sidaad samaysid awoodaa ilaahay ku siiyaad ka faa'iidaysatid qof kastaba ilaahay subxaana watacaala waxbuu hibe uu siiyey balse dadka badankoodu hibadaa ilaahay siiyey ayayna soo saareen waa kii alberto einstein yidhi 99% guushu waa dadaal 1% waa hibo ilaahay wuxuu hibaa ku siiya oo aad ka faa'iidaysatid kusoo dhowow dariiqadii aad ka horumarin lahayd fikradaaga wax ku oolka iyo riyadaadaba qodobka koowaad wuxuu yahay qor 10 shay oo aad doonaysid inaad xaqiijiso 10 shay qor hadafkaaga qor qof bila hadaf wada garanaysa soo toosaya oo seexanaya inuu qofku bilaadanka oo waliba muslimka inuu hadaf yeesho waa muhiim marka hadafkaaga qor sida uu kala muhiimsan yihiin oo qor qodobka labaad u diiwaan gali sida ay u kala horeeyaan ee ay u kala muhiimsan yihiin arrimo tusaalaan ku soo qaadanaya maalintii waxaad qabataa mar waad jimicsataa mar waxba qaybtaa mar quraanka qaybtaa mar casharada caadiga ah qaybtaa haddaba wax walba sida uu kala horeeyaan oo u kala muhiimsan yihiin u diiwaan gali qodobkaasna isla fahanaan filaya qodobkeena saddexaad fadhiiso meel degan oo bilaabuuqa badankeena Soomaalidu sidaa ma samayso meel degan dhalinyaradu ma fadhiisato intay fadhiisataana oo iska yaryihiin inaad meel degan fadhiisato macnaheedu waxa weeye inaad buuqaad ka dhex baxdid oo aad naftaada la hadashid meelaha ka jilicsan tahay meeshaad is odhanaysid walaahi hebelo maanta meesha oo walaaga soo dhacaya qodobkeena afraad iibso buug yar oo xasuus qora badankeenu dadku maalmihii dambe ayay dhalinyaradu badankoodu qaar ay ku soo baraarureen balse arrinka waxa la soo isticmaalayay ilaa waqti hore dadkii hore meel bay wax ku qoran jireen fikradooda muhiimka ay ku kaydin jireen marka aduguna noqo mid fikradiisa muhiimka kaydiya buug yar iibso oo ku magacaw saaxiibkay fikradaha qodobkeena shanaad waxaan ku leeyahay wax akhris joogtaa samee nabi cali salaatu wasalaam aayadii ugu horeeyay ku soo degtay waxay iqra bismi rabbika alladhi khalaq magaca rabbiga akhri marka akhrisku qofka bilaadanka kama maarmo muslimka waliba wax kasta akhriso quraanka kariimka
akhri buugaagta taariikha akhri waxyaalo badan baa ku kordhay markastoo aad wax akhrisid akhriskuna kumanaan qof uu bedelay haddaan tusaale ku soo qaato iminka waxaa jira qolyooyinka reer galbeedka dad ka mid ah ee diinta islaamka wixii ka aaminsan yihiin inay nahay dad argagixisa oo dadka laaya balse qaar ka mid ah ayaa akhriyay quraanka kariimka marka xaqiiqadii ay arkeen diinta ilaahay diintii saxda ay tahay ayay islaameen fikirkan khaldanna iyada inaga faafiya kuwooda caqliga yarba inaga faafiya yiri muslimiintu waa dad caynka jiilba jiil buu sii dhibaya inay fikirka xun muslimka ka aaminsanaadaan marka tusaale waxaan uga socdaa dadkaas ku soo islaamaya quraanka kariimka marka akhriyaan fikrad cusub bay heleen rabbigood abuurtay ka heleen kadibna kuwa islaam adna waxaad helaysaa fikrad cusub oo noloshaada wax ka bedeshid markaad wax akhridid insha Allah waxaad gaari darajo sare haddii aad sidaas sameysay weeye aad qodobada raadid haddaba intaan muuqaalka ka bixin option yar baa kula wadaagaya option ka yar bal isku day inaad soo fulisid waa muhiim inaad soo fulisid haddaba waxaa jira optionka dad loo fuliyo aana dadka waxba ku soo kordhinin marka waxaan leeyahay optionka waxaad u fulisaan dadka waxtar kale oo dadkooda xoga ka maqan ku soo kordhinaya waxa u fuliya marka su'aalan ku weydiiyay intaan muuqaalka ka bixinay aniga optionkan miyay fulisay haddaadan fulin optionkan ama aadan fahansanin optionku wuxuu yahay optionku waxa weyn ma ahaba waxa weeya leed in muuqaalka saartid si share garee saaxiibada la wadaag kuwa WhatsAppka kugu jira kuwa Facebookka kugu jira dhammaantood la wadaag siga uga faa'iideystaan muuqaalka hadday ku camal falaan oo si waxan uga faa'iideystaan ajar baad ku leedahay muuqaalka anaana ku damaano qaaday anigaagin muuqaalka sameeyay haddaad share gareysid weeye marka optionka lagu sheegaya waa caynkaas in muuqaalka like saartid channelka subscribe saartid haddaad ku cusub tahay muuqaalkana saaxiibada la wadaagtid muuqaalkeena maanta intaas uu ka eegyahay kuleyna muuqaalka wax ka faa'iidaan filaya insha Allah waxaan iga tagayaa intuu maanku gaajiisan yahay guuli waa weli ayuu abwaan hadraawi Allahu naxariiste waxaan iga tagayaa inta muuqaalka xiga aan iskugu imanno amaana Allah wasalaamu calaykum waraxmatullahi